waxaa qadka si toos ah ugu jira kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta FC Yemeiska Axmed Yaasiin soo dhawow. waa dhow afar walaal waa mahadsantahay. maalinta beri hadduu Allah awood la ogolaado kooxdaadii FC Yemeiska waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta FC Comset kulan ka tirsan horyaalka gobolka Mudug oo maanta lagu daahfuray kooxaha Fallujah iyo Hombobaro. kooxdaada maxaad u rajeynaysaa maalinta beri? سؤال مطلقاً مدرين ويديسي دي قف والبدي لا يكون يامي إكس ولا يهاي أنا كوحدة يمسك كوري هوس بقول بأورجين يا وكوحدة دي عيارة بريدة عيسنا ودرب المدق أما الكلاسيكو قد لا يكون يمسك يو كومسيد والوجي حفالتك كدحية إن كستونا نصيب ويا لأن عيار كسر رح موضوع لبضاس تيم يكون عياريان ووقت جانس كي مطلقاً ويسين واي لكن بري يمسك وحنا ورجين يا قول وين aad baad u mahadsan tahay groupka ay ku jirta kooxda Yemeiska waa group aad u adag raja intee lag ayaa ka qabtaa Yemeiska in groupka ka soo bixi karto wallahi saadaalintaas waa aad u adagtay Cabdiqafaar laakiin aniga ra'yi hadii la ku roon Yemeiska ahaan waxaan isleeyahay waa ka soo gudbi karaan groupkaas waxaanan u suurta gelin karaa ciyaarta beri haday saddexda dhibcood helaan waxaan qabaa in groupkaas ay ka soo bixi karaan inkastoo uu yahay groupka ugu adag oo hadii ay ku yahay big 4 ama big 5 team kaliya ku jiraan Yemeiska Comset Telecom RBS ay sanahayn mutaqana teamam kala dhacan laakiin mar walba hadii ay ku roon waxaan ku rajoonahay haddaan Yemeisnahay inaan ka soo baxin groupkaas Axmed Yaasiin ma aaminsan tahay kooxdaada Yemeiska inay awood u leedahay inay koobka ku guuleysato إلهي كوريا ترتنك مركي وفريا هاي وأما بلوده قفل بوا كورة جواني إنه كوجوليستو كوحدة أنا هدي لهاي كوريا رجال وجوين وكوب كان بقى قاعدنا سواحد تاني كوجوليستو وهدي لهاي كوريا يوريال كان هناتو ما دام النصيب ويا لويس أنا كلن كاس عيارته بريق قلب كوحدة هذا Yemeiska يتغيره هذا محبة قدرسه والله وحلي Yemeiska معمول كيسا taageerihiisa hadii ay ku raandii karo watiima kugu taageeraha badan gobolka Mudug Yemeiska waxaan leeyahay wixii leen ku yaqaanay soo bandhiga haday noqoto xamaasada shacabka tarbuunka saaran haday noqoto bilayrinta garoonka ku jira kubadda tika taakada ahayd oo lagu yaqaanay Yemeiska oo daawashada dadku ku raaxaysan jireen waxaan rajeynayaa beritaas hadii ay ku roonyahay iyo tuka balaaran ay soo bandhigaan su'aasha ugu dambayso maxaad u diraysaa fariin macalinka iyo ciyaartoyda Yemeiska waxaan leeyahay macalinka iyo oo hadii la ku roonyahay kabtanka iyo dhalinyarta bilayrinta dhamaan waxa la kaga bartay akhlaaq wanaag Yemeiska lagu yaqaan inay soo bandhigtaan kubadda wacdi iyo madow guul iyo guul darro way leedahay groupku waa bilow laakiin inkastoo bari ciyaarta xamaasadeedu ay weyn tahay yeesan in ka tan badanin oo istan xamaasadeedu qaadin wax walba deganaan baa lagu dhameeyaa ciyaarta adigoo xakameyn kara in gacmiina ka bixin nin caroodana laga badi tad mataqana caradu yeesan qaadin oo bari wax yar oo khalad dhaca yuusan ciyaartaas in ka galaafan marka waxaan leeyahay ciyaar degan oo qurux badan sida leena kaga bartay soo bandhiga hagaagkaasi wuxuu ahaa kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta FC Yemeiska Axmed Yaasiin ku cayire oo jooga dalka Jarmalka oo kooxdiisa kubadda cagta FC Yemeiska u rajeeyay guul Axmed Yaasiin aad baad u mahadsantahay waa mahadsantahay walaal Cabdiqafaar sidoo kale